وهل من الوكيل ذلك المسلمين كانوا ويملوا وحدة الأخلاق والسلوك وحدة الثقافة وحيالها سلطان أي العلمية هذا هو الحوي وحنا نسميه وأبوه رأي أهمية الإسلام كلية هي تذكر المسلمين علميون أهمية أنها إلى وحنا نسميه وبكافة الصلاة it protects the life of the person and the one who's praying it. He knows that about other people. Where we come from, unfortunately, where I'm living right now. Believe it or not, we have gangs. Pakistani Muslims fighting against Somali Muslims. Somali Muslims, some live over there, some live over there, and they're fighting each other. In the process of all this drama, Yemenis Muslims fighting against Somali and Pakistani Muslims. And all this drama that's going on, in the last 7 years that I've been over here, countless Muslims have lost their lives as a result of usually getting stabbed. Why did the kid get stabbed? He got stabbed for no reason other than he comes from an area in which those people have drama with those individuals. He's not a gang member, he's from the area, and they stab him. The boy prays to Allah. The Muslim who knows this individual prays, it's hard for me to spill his prayer. Even if he didn't pray, not my business, not my job, not my position, to spill anyone what. But what about the one who prays, facing the Qibla of Islam? The Nabi told Abdullah ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, استعين بالله. Seek help from Allah. waxay aaminsan yihiin in ay intellectually ama caqli ahaan complete yihiin oo dhammaystiran yihiin masalada markuu dhinac ka fiiriyo wuxuu ku leeyahay waa saxsana waa saan siduu u fahmo kuu sheegaya ama siduu u fahamtay kuu sheegaysa waqtigan ayaga ah dadkani ama da'da ku jira da'da dhalinyaronimada waxay khatar ugu jiraan inay ku dhacaan hawadooda waxay jecel yihiin in ay dabeecado ama habits aan fiicnayn ay attract gareeyaan dabeecadaha fiicnayn inay attract gareeyaan ay soo jiitaan mujada inuu daroogo bilaabo canuga inuu khamra cad bilaabo inuu faaxisho iyo girlfriend iyo boyfriend bilaabo ay gabadhiina ay boyfriend bilowdo wiilkan girlfriend u bilaabo mujada waxaas inay dhex galaan ayay halis ugu jiraan waqtigan asaga sababta tahay waqtigu ugu xoog badnaa uu dareemayay buu ilmahana ku jiraa waxaa kaloo ilmahani waxyaabaha dhibaatooyinka ugu waaweyn ka mid ah aydiyooyinka adduunka socda khaasatan hadda internetka meel walba yaalla youtube facebook waxaasoo dhan ba ordaaya marka maxaa u sahlan in uu destructive ideologies iyo beliefs inuu dhex galo ilmaha dugsi yararka oo teenagerska qaar markay kula doodayaan wuxuu ka vegetarian baa ah u dhahay waayo animalka aan cunaysa disgusting waxa aan cunaysa hilibka aan cunaysa macallin disgusting wax noola inta disha cunaysa mid mawjada qaarkood waxay kula doodeen xuduud jinsi ah dadkan mamnuudka la yidhahdo waayo loo xaqiraaya day naas micno way fiican yihiin si fiican bay kula hadlaayaan waa friendly aad bay u wanaagsan yihiin maxaa loo rajabta garaynaya kas cangan ay dhiyaa ka dhacday iskuulku ku dhigtay saaxiibadiis buu arkay waa loo macaaneeyey marka aydiyooyinkaa ka gadmi og way ka gadmaayaan waxaan lagu akrinaayo si sahlan bay oga gadmaayaan saan horeyda kugu sheegayna because waxaa u sahlan canuga waxaa u sahlan in uu hal angalbas ka fiiriyo maxaan ku idhahdayey qadiyad meelqayn mar baan arkay canuga inta wax laga soo dhaadhiciyey asoo cabsayin maanta markaasa wax kala ka dhaadhicinaysa wuu ku fahma waa runtaa nacas kama fiiri wuu baxaya haddana angal kala laga soo tusaya haddana waa angal kala ka tusaysa haddana mid kale But generally speaking, this muhabara is not directed specifically to the youth, but in reality it is for the parents indeed. Because as they say, when you point in the finger at someone, you have three pointing back at you. So a lot of times we're looking for the problem, and in reality we are the problem. So in actuality, the idea of friendship, the word insan in the Arabic language
الإنسان سمي إنسانا لسببين. There are two reasons why the human being in the Arabic language is called insan. They said إما من التآنس or من النسيان. In other words, the anus is he's social. بطبعه مدني. He needs to talk with someone and affiliate and rely and socialize with someone. Or they said it's من التآنس or من النسيان. النسيان, he's forever forgetful. He is a forgetful human being. So off of this, وَكِلَاهُمَا, both of the terms are not contradicting to one another, right? So if we were to take the meaning that it's from ta'anus, is to be social and talk and rely and go back and forth with one another, that will be the thread in which we will leave upon, inshaAllah ta'ala.